daawadayaal imika waxaan joognaa meel ay ka socoto wadada hawsheedu sida dadkaasana waxaanu saaranahay baashan cagaf waxaweeye way dhammaatay waddada ceergaabo iyo hadday isku xirantay ceelaf weyn waxaweeye waddada 300 kilomitir ah oo cid ku dhiirata la waayey waddadanu waxay ku jirtay barnaamijka xisbiga wadana ceergaabana in badan bay ku fikrinay in badan baynu howlgelinay in badan baynu maalgelinay xusuustu ugoobin abid siiraya duwaagasho adaab baa dahab ku qoran shacbigu kuu wada duceen ciwaanka dushaad ku taal dhismaha wadada ceergaabo oo hadda loogu magac daray madaxweynaha hirgeliyay ee Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo waa mid ka mid ah talaabooyinka ugu waaweyn dhinaca horumarka ee ay ku tallaabsatay Jamhuuriyadda Soomaaliland tan iyo intii ay la soo noqotay madax bannaanideeda sanadku markuu ahaa 2010 waxaa shacabka Soomaaliland ay madaxweyne u doorteen mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo oo ku guuleystay 49.50 boqolkiiba codadka doorashadii loo dareeray 1 bisha Julaay ee sanadkaasi madaxweyne Axmed Silaayo waxa muddadaasi uu la wareegay wadan qasnadiisa dhaqaale ay maran tahay isla markaana uu ka muuqdo dib u dhac baahsan dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha dhismayaasha wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda waxaana hor yaalay duruufo dhaqaale oo aad u qalafsan markii aan talada dalka qabtay waxaan la wareegay qasam maran dawladda 45 milyan oo dollar 6,500 oo shaqaale dawladeed ah oo 4 bilood mushaar qaadan ciidamo aan sarkaalkoodu iyo siddeedayo toban aan kala lahayn Soomaaliya sayxatoona waxaa la wareegay wadooyin burbursan iyo kaabayaal dhaqaale aan la daryeelin waxaa la wareegay dalka intiisa badan lagu isticmaalo lacagtii diinbaadka Soomaaliya waxaa la wareegay idaacadda qaranka oo aan dhaafin 20 kilomitir guud ahaanba waxaa la wareegay qaran ku jiray duruuf qalafsan 17 bishii March 2014 madaxweynaha Soomaaliland waxa uu markii ugu horeysay taariikhda ku dhiiraday dhagaxdhiga dhismaha waddo dhererkeedu uu gaadhayo 306 kilomitir oo isku xiraysa gobolka Sanaag iyo badiba dalka Soomaaliland intiisa kale dhagaxdhiga iyo dhismaha wadadan dhaqaalaha ku baxaya aanu u babac dhigi karin wadan rasmi ahaan aan la aqoonsan waxa ay muuqatay laablakac iyo qorshe dhalanteed ah oo aan suuragal ahayn in la dhamaystiri karo bilowgii wajiga koobaad ee mashruuca wadada waxa hareeyay hadallo ka soo yeeray mucaaradka qaarkood oo lagu beeninayo himilada madaxweynaha Soomaaliland oo ahayd in gobolka Sanaag loo sameeyo waddo laamiya oo wadanka intiisa kale ku xidha hase ahaatee waxa taa bedelkeeda madaxweynaha iyo xukuumadda uu hogaaminayaba isgarab taagay shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibadda oo door laxaad ka qaatay qaaraanka dhaqaalaha gelaya dhismaha wadada oo qaranka ugu fadhida qiimo aad u ballaaran waxaan anigu bixinayaa aniga oo ah Axmed Maxamed Xaaji kullu tilaariyayow waxaan ku ballan qaadayaa laba tilaariya إلى النهيل يهوى ودنا على قرب تاجنا هاي قاربا العشم بام بحلية بقول بام بحلية ورجال واكن أنا قوى الله بكون حقيقة بيانا كدر مدحوينا أحمد محمود سلايو نكون سلامة إنا أمريكا
هجرو dhismaha wadada Siilaanyo Road oo marxalado kala duwan soo martay waxa ay maanta maraysaa meel dhammaad ku dhow kadib markii la hoosgeeyay wasiirka hawlaha guud ee Somaliland oo si dardar leh u dhaqaajiyay hawsha wadada shaqada uu qabtay wasiir Cali Maxamed Xasan Cali Marreexaan oo muddo sanad ah gacanta ku hayay wadooyinka Somaliland waxa qiyaasi kara cid xoogagaal u ahayd xilligii hore ee wadadu ay hoos iman jirtay madaxtooyada iyo maanta oo ay hoos timaado wasaaraddiisa hawlaha guud wasiir Cali intii uu yimi wadada dardargelintii xoog ay qaadatay ilaahay baa og yani markuu take off runtii qaadatay waxaan leeyahay qaranka oo dhan baa runtii waxa tustay dawladnimadeena iyo dadnimadeena iyo waxaanu nahay aanu qabsan karno haddii hogaamiye wanaagsan oo dalkan iyo ummadda uu hogaaminayo in wax walba ay possible yihiin ayuu madaxweynaha maxaan ku raadayay ay wadadaas adduunka oo dhan tusay labada wasiir ee isku bedelay intii uu wasiirka Cali Marreexaan uu yimi kal dhadhaab oo 14 kilomitir u jirta ayaa laga soo bilaabay runtii aniga farxad labaad bay ii tahay intaas oo mashaariica oo gobolka ka socota intii aan imooyay hawlaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Siilaanyo aniga oo ah Sultaan Cabdi Cadood waxaan aad uga sii mahadcelinayaa mar labaad wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta Cali Marreexaan oo intii uu halkan joogay hawshii ay arkaysaan maanta inaynu ka shaqo joogno oo ay xawliga ay u socoto sida ay u socoto iyo dardarta uu geliyay intii uu wasiirka hawlaha guud ahaa aad iyo aad madaxweynaha noo magacaabay Cali Marreexaan aan uga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol waxaan leeyahay madaxweyne jazakallahu khayr waxa kale oo xaqiijinaya waxqabadka wasiirka shaqaalaha gacanta ku haya dhismaha wadada oo badankoodu yahay kuwii lagu bilaabay markii aanu madaxtooyada hor joognay wadadu waxay maraysay carakaawada ceelafin taamirkuna wuxuu marayay 14 kilomitir buu marayay maanta hawlaha guud baan hor joognaa wadada gabi ahaanteed carakaawada waxa ka hadhay 10 kilomitir taamirkuna wuxuu saaran yahay 100 kilomitir marka halkaas aad ka garan kartaa farqiga u dhaxeeya wasaaradda hawlaha guud waxay hoos timid wakaaladda horumarintu magacaabista Cali Marreexaan la magacaabay intaa uu idiin sheegay korodhkiina wuxuu yimi wixii ka dambeeyay bishii 12aad ee sanadkii hore oo ah muddadii uu wasiirka ka ahaa Cali xilligii madaxtooyada hoos tageynay 14 kilomitir baa xagga orgaabada Afrika maanta 8 kilomitir baan maray waana muddo labada marka la isku eego ay waxa weeye muddana waa sanad iyo badbe marka jaas waxaad ka qaadan kartaa maalinta ka dambaysa waan sii kordheynaa inkana wasaaradda hawlaha guud intaan hoos tagnay ama wasiirkan dambe yimi shaqada wasiir laba laabatay xaq qalab ha ahaato xaq shaqo ha ahaato xagka warhayneed ha ahaato waxaan joognaa qayb ka mid ah meelaha ay wadadu ka socoto deegaanka magaciisa ma dhahdaa wargumbi sababta wadada dhinacana looga bilaabay dhinacana looga bilaabay maxay tahay hal dhinac looga bilaabi waayo socodku si u fogaado ayaa ka aad soo marteen oo kale markii hore aan ergaabo ka bilownay wadada loo soo qaadaa 4 habeen 3 habeen bay loo soo jirtay marba jirtay dhiiri geli jirtay 7 casho gaariga loo soo tirsanaanay uu soo geli jiray oo 7 casho taagnaan jiray shidaalaan taagnaan jiray marka si ay socodku u fogaado ayaa wadadan loo fakaleeyay loo soo kala horeeyay What do you
inkastoo waddadani aanay rasmi ahaan u soo gabagaboobin haddana waxay noqotay halbowle muhiim ah oo horumar badan u horseeday gobolka Sanaag oo muddo la go'doonsanaa waddo xumo ragaadisay gaadiidka iyo guud ahaanba dhaqdhaqaaqa dhinaca dhaqaalaha ee gobolka. sidaad warkaysaan waxaa la taagannahay mid ka mid ah gaadiidka taga magaalada Ceergaabo. walaal salaam calaykum. salaam كلمة بالوضعين هذا كارين كتكتير إرجعوا. أنت يعني وضعنا إسكندري. باي. لما كبر إني مرتين شو بورا وقران سندري هنا قرناي. مثلا ما شاء الله دوام تناو حسن عنا. حاول تدرس كل شيء كل كسنة كان يكره إرجعوا. وحيس كل شيء برجع ورقة. وتخرج جديد ده بعوض وين يشتري بعوض أبغى نقول بناء بنشر. marka dambaaho adiga shaatigan ku jirno hadeerna ma sha Allah intaan waxaan taagnahay daawadayaal sida warkaysaan bartamaha magaalada Ceergaabo iyada ay tahay arooriyo hore ilaa 7 subaxnimo waxaan la taagnahay mid kamid ah dadka shacabka ah ee magaalada. Assalaamu alaykum walaalo magacaaga ku bilaabay. Alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. magacaygu waa Mursal Maxamed Maxamed baan leeyahay. wado iyo wadaan aad u kala fognaayeen ganacsiga ku soo kordhisay bilaha magaalada ku soo kordhisay isu socodka magaalada ku soo kordhisay marka wax badan soo kordhisay waqtigii hore magaalada in badan ay joogto magaalada gaadiidka kala gaadhida gaar loo isticmaali jiray waxa ku soo kordhay baabuurtii imka tan iyo inta waxa ku soo kordhay gaadiid fara badan oo runtii baabuurta raaxada kamid yihiin oo waliba nooc kala duwan leh tagaasiir aad fara badan baala kala yiraahdo baabjaadka ama saddex lugood ay guriga qaybo taqaano gaadiid kale oo xaway baabuurta ay xirada officialka hadda waxa laga yaabaa afar sano ka hor inay gaadiidka magaalada ahaayeen baabuur aad u daalan iyo gaadiid waaweyn oo gaadidka yar aad ku yaraa marka wax badan ku soo kordhisay wax badan sidaad warkaysaan daawadayaal waxaan taaganahay meel kamid ah istaamada ay ka dhaqaaqaan gaadiidka loo yaqaano bajaajta ama tigta oo bariyii hore aan filayo in laga aqoon magaalada Ceergaabo hadda se aad ugu soo batay bal waxaan weydiinaynaa mid kamid ah darawallada gaadiidkan wata. Assalaamu alaykum walaal adiga magacaaga ku bilaabayeen gaadiidkan bal nooga waran xilliga magaalada yimaadeen iyo waqti ku soo kordheen aadan baa leeyahay gaadiidkan waxaa shaqeynaya ilaa intii wadada uu bilaabantay marka alxamdulillah wadada tan uu bilaa taa qaadeen wana lagu liibaanay wata iyo ka raacayba ma dabeeto jawaab ka weeye ma hada waxa iska Ahmed Maxamed Maxamuud Silaay madaxweynaha imaantiisa waa xiliyeenna ka hambalyaanu leenahay madaxweyne aad iyo aad ayaan ku salaameynaa aad iyo aad gobolka waxqabadkiisa uu muuqdaa waa mid direct oo muuqdo oo aanu ku shaqeynayno dab ah oo aan dhex marayno bajaaj iyo gaadiidkii iyo taxi iyo wax walba aanu maanta ka ciishno ku macaashnay oo aanu shaqo abuur ka samaysanay halkan ku taariikh ka gal lahayn gobolkayga ku fogsanay oo aanu waxqabad ka qabsanay wax badan bay ku soo kordhisay horumar fara badan waa aragtaa dhismaha aanu wadno ilaa 7 aqalo kale tana waanu bilaabnaa kuwa dhaadheer moolada halkan waad ku aragteen boorka moolada hadda aan doonayno sameeyno ma iimaanaynin awal laakiin maxaa keenay wadada tan wado xiriirka ay xiriirisay gobolada waxay keentay horumar aad iyo aad u ballaaran wax waliba waa miridho ayay noqdeen iyo hawl yari iyo hawl fududayn ayay noqdeen ka bax ka degtay waa laga baxay iyo daycii lagu jiray dawladii hore waxba ka qaban kari waayeen. Ahmed Maxamed Maxamuud Siilaayo waa looga aayay si fiican baa looga aayay oo hadii allaba kuray dalku iyo dadkuba ay uga aayeen marka waxaan leenahay ilaahay cimrigiisa haraajiyo ilaahay waxaan uga rajaynayaa cimri dheer maxay ta janno fadhisan yahay geeyo waaba geenaya wadada inta lagu weynoo sameeyay waaba geenaya qofku waa la yiri hadii uu sameeyo wadada sabiililaahiga waa hel janno marka insha Allah ilaahay baan ugu mahad celinaynaa wadadaas uu sameeyay in badan dhawaan sugayna gobolka Sanaag baaxadiisa waxa lagu qiyaasaa 40% dhulweynaha Soomaaliland waana gobol hodan oo ku haboon wax soo saarka isla markaana ay ku yaalaan goobo soo jiidasho leh oo taariikhi ah. madaxweyne waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan joogno halkii uu ka socday daamirka jidka dheer ee wadada Ceergaabo ee aad dhagax dhigtay dhowr sanadood ka hor
oo ka soo bilaabmay ceerigaabo xaggaana ka soo bilaabmay in afmadoobe sida ay sheegeen madaxda waddada gacanta ku haysa hadda waxaynu joognaa kal sheekh waxaana ceelaf weyn uu inoo jiraa dhowr iyo 10 kilomitir ilaa ceerigaabo ilaa halka aynu joognaa waa laami aan kala gool ahayn ilaa iyo marka laga soo bilaabo meesha la yidhaha in afmadoobe iyo ilaa waridaadna waxa weeye isna waa laami anigu maalintii ugu horreysaan ini runtii dad badan baa igu canaanto idhaa war waxan maxaad u sheegi weyda laakiin wuxuu markay dhismo tahay madaxweyne dhismo waa wax la taaban karo marka guri haddaad dhisto gurigu wuu dhismay wey qofna odhan maayo gurigii muu dhismay waayo waa la imanaya waa la gelaya waa la seexanaya waa loo hoyanaya laakiin waxaa la iiga xariifsanaa madaxweyne miidiya iyo faanfaan badan iyo faataadhug badan baan samayn waxaan ku bedelay inay shaqo socoto waxaa hawshaa madaxweyne weliba noo dheeraa 700 iyo dheeraadkaa daamirkaa 14 kilomitir markana 100 iyo dheeraad maraysa waxaa noo dheeraa diin oo ay tahay runtii la sheego oo aan la qarin madaxweyne waxaana lagu wareejiyey oo garhka lay geliyey 5 milyan lacag gaaraysa oo deyna oo maanta ka hor aanan ka hadal guddigii hore ee cadami iyo caddaanay ka mid ahaayeen ee loo xilsaaray waddada ee soo bilaabay raggii hore ee 2008kii qoraya barnaamijkii kulmiye ee asaaska in waddada la bilaabo qorshaha ku soo qoray ku daray raggii arrintaa ka soo hindisay ragga hawsheeda bilaabay ee injineerada la soo bilaabay ilaa booramiyo ilaa wajaale soo dhimay halkana wada iyo shaqaalahooda wasaaradda howlaha guud oo hadda gacanta ku hayso iyana sanadkan aad dadaashay dhammaan waa hambaliyana waa mahadnaqaynaa waxaanu tusaa waddada dadku hadduu isu kalsoonaado aragti wanaagsanna yeesho inaan wax walba qabsan karno Soomaaliland ahaad waxaanan ku hambaliyaynaynaa bar labaad madaxweynaha oo fishkaar ugu hogaamiyey kulligeen farxad weyn bayna tahay inaan maanta ka soo qayb galno waddada tan ceerigaabo aan arkayno ahmiyadii halkay marayso waxaan leeyahay isgaarsiintu aad bay muhiim ugu leedahay dalka oo dhan waddana ceerigaabana in badan baynu ku fikiraynay in badan baynu howlgelinay in badan baynu maalgelinay meel wanaagsan way noo maraysaa waxaan jeclahay halkan hambaliyo ballaaran uga soo jeediyay in alla intii ka qayb gashay oo dhan kamariyaasha ka shaqeeyey dad ka shaqeeyey wasaaradii ka shaqeeyey iyo cid alla cidda howlaha soo meel kastaa noqotee gacan ka geysatay intaba ilaahay nala qabto dalkan iyo dadkan meel wanaagsan ha mariyo aad iyo aad baa marsantay wasalaamu calaykum